madaxdu ay aqbalaan inay arkaan naftirkeeda hawl sahlan maahan oo shaqooyin badan baa u yaalay marka taas keentay in la soo yaray marka waad mahadsantihiin message-kiinana runtii aad buu u dhacay horta dastuurkeena qodobkooda 10 si cad u qeexayaayo awood uu ragga gaar u siiyay ma jirto ragga iyo dumarkaba awood waa u siman yihiin iyagoon midab iyo qabiil iyo waa tiro badan yahay xaleemana si fiican u akhriso way ogtahay marka wax gaar oo ragga la siiyay ma jiro mushkiladda hadday dhaqanka ka jirto ragga halka jooga ma aha ragga waxa sameeyay marka waa wax guud oo u baahan in laga wada shaqeeyo marka waan qabaa in dagaalka iyo kala sooca iyo naga qaraaraan oo xumaane waxa naga wada maqnaan wada raadino hadii 2012 aad karteen in 30 nilo ogolaaday maanta 24 amaraysaan waa wax weyn short dheer baa gaarteen marka waan qabaa in la moderate gareeyo oo habka wax loo raadiyo way isnaqaanaa hadda wax kala qarsan meene intii mashaariicda iyo projectiyada hay'adaha laga saaro deena wax qabataan dalka damba ugu jirta dad badan oo soo shaqeeya halka fadhiyo oo runtii maaragtay sahare iyo muddo aan yareynay shaqeynaysay oo dalka waa dadku waa shaqaanay xaleema iyo waa dadku waa la soo shaqeeyay marna Soomaali gabdhaha xaqraad kuma haysan inta aan anaga ognahay marka waan rajaynayaa inaan anaga ruuxadeena اسلوبك بدلناه هدي دجال النقطة الرجوع نيجي حجوا ويه إنه خطر باجلس مركا هل بدلوا أرسلية يعني حكوا حلقوا رادينا يو هل كروح حدي نقرال كينا جوج السياسة هذا الجرا وإحنا وضع هسته وأوبا هنينا وجهنا كلمة ده هل كل جن ما أقبلي لما أقبلي كرو سيدا أوبرتين حوجا نفتر كذا ورحية دجال كهسيسي أفريف وجيننا أو ينقو كل جوت affirmative action ka ay la sheegay iyo in gabdhaha kootooyin loo xiro iyo waa wax dasaatiirta aan lagu qorin laakiin tafaahumaad baa jira halkan waa jirtaa 24 waxay ku timid dadaal madax samaysay iyo maaragtay haddana waa la wadaa maalintii dhaweyda 17 go'aan hore loo gaaray in la ixtiraamo ayaa saasa loo jeedaa la go'aanka lagu ma noqonayo go'aanka already horaa 30% la isku afgartay ما كرجح من شقادو هذا ما دليل سنين دتك هالك فردي دتك هواين شقادو دليل سن معها وضياش مركي قعدت وجود جيران دقن كأننا قفك دقن كيس عاي سجاس عينا ومضوا دقنا كل دون اللي عيبنا معها والضمضوا هو حضارة بدن أيا فرصة الضمر خيرته هو حضارة ير هو حاجر الضمر خيه جامعا وكلجرك معها نعيب دمر قار لو قبو marka aan waxaan rajaynayaa in culture society-gu adduunku wax la yiraahdo dhaqamadu ma kala fiicnee waa kala duwan yihiin marka qof walba wixii Ilaahay iyo deegaankiisa ka dhashay inuu ku qanco waa muhiim noloshuna waxay ku jirtaa horumarka joogtada in wax laga bedelo wixii dhaqankii aan fiicnayn waa dadaal noo wada yaalo aan rabo idinkana inaan ka shaqeysaan sida hadda sheegteen kulay magaalo walba ay ka jiraan Puntland gabdhaha iskuulada dhigtay environment-ga aad u sareeya almost haduu ka badnay waa ku dhow yahay kala bar jaamacadaha dadka ugu badan iyaga waaye jaamacad iskuulaadka secondary gabadhu wixii ugu sareeyay gabdhaha noqdeen business-kii traditional-ka ahaa oo yaaya iyo waxaasaan ganaa hadda waa ka duwayeen business-yada waaweyn iyo dadka haysta gabdhaha u badan yihiin marka noloshu waa soo socotaa iyada naftirkeeda mujtamac korayaan nahay oo dhaqanka magaalo ku cusub yahay dhaqanka midii dumarka Soomaaliyeed kuma xaqirneen iyaga guriga maamul iyaga reerka hogaamiye iyaga talada gaara iyaga wax walba gacanta ku haya midan hooyadu ay promote gareynayso aad sheegaysaan xumaan idinkii isma xumaynaysaan laakiin culture-ka aan wali ku noolnahay waa culture colaadeed waa culture dhibaad gabdhaha dhahaya dadkaan soo korinay raggu naftirkooda way protect gareeyaan duruufo adaga jira shaqada waa la kala qaybsaday marka in laga wada baxaa la rabaa annaga ruuxadan waa dhibtoonaysaa inay difaacayeen moogtaa hadda idinka cajalada joogtaan ma sahlana inta dhimanaysa inta dhaawacmaysa oo hadda raga halka ka hadlay waxay dhaheen gabdhaha 30% aan siinay ciidamadana 30% ha keenaan ee shabaabka halaayaan marka waa la wada hadli doonaa wax la isla waayi maayo ana intaas aan uga baxaya